maxaad ka taqaanaa magaalo dadka ku dhinta aan lagu oggolayn in lagu aaso dhulkeeda? Magaalada Longyearbyen ee dalka Norway oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay 2,000 oo qoys ayaa ah magaalo ka duwan magaalooyinka kale ee dalkaas. Waa jasiirad ku taal bartamaha dalka Norway oo qofkii ku xanuunsada uu ku khasban yahay inuu magaalada isaga baxo, ama haddii uu ku dhinto aan lagu aasi karin magaaladaas. Dadka nafqabadka ayaa loo diraa magaalooyinka kale ee Norway si ay ugu geeriyoodaan. Waxaana jira sharci ah in haddii qofku uu ku dhinto aanay cidina xawaali karin. Sharcigan ayaa magaalada ka dhaqan galay in ka badan 80 sano ka hor, waxaana sanadii 1918 albaabada la isugu dhuftay xawaalaha magaalada oo dhan. Intaa waxaa ka dambeeyay aan loo oggolayn in hal qof lagu aaso. Longyearbyen oo ah magaalo aad u qabow inteeda badanna barafka aad uga da'o, ayaa mararka qaar waxaa dhacda in qabowga uu gaaro wax ka hooseeya 50 darajo, heerka biyuhuna uu kor u barafoobaan. Maxay tahay sababta aan lagu oggolayn in lagu aaso meydka? Sanadii 1918 waxaa adduunka ka dilaacay hargab lagu magacaabi jiray Spanish flu, kaasoo ku dhacay dad lagu qiyaasay 500 oo milyan oo qof ah. Meelaha uu ka dilaacay xanuunkaas waxaa ka mid ahaa magaalada Longyearbyen oo dad gaadhaya 11 qof ay uga dhinteen, dadkaas oo lagu aasay isla magaaladaas. Hase yeeshee, qabowga magaalada oo aad u daran ayaa waxay keentay in dadkii uu geeriyooday xanuunka ee lagu aasay magaalada aanu jirkooda baabi'in. Hase yeeshee, qabowga magaalada oo aad u daran ayaa waxay keentay in dadkii u geeriyooday xanuunka ee lagu aasay magaalada aanu jirkoodu baabi'in, taas oo khubarada caafimaadka ay sheegeen in jirto halis in xanuunkan ay mar kale dadku ka qaadi karaan dadkii u dhintay ee lagu aasay magaalada, kuwaas oo jidhkoodu aanu burburin welina sidiisii yahay. Dr. Christie oo ka tirsan jaamacadda Windsor iyo koox uu hogaaminayo ayaa tagay magaalada si ay wax uga ogaadaan. Waxay tijaabo ka soo qaadeen qof u dhintay xanuunka oo lagu aasay Longyearbyen, waxayna ogaadeen in weli xanuunka Spanish flu oo jidhkiisa ku jiro. Christie Mayer oo sidoo kale ka tirsan jaamacadda sayniska iyo tiknoolajiyadda ee Norway ayaa hore u sharaxday sababta aanu dadka lagu aasi karin magaaladaas. Arrintan ayay saraakiisha dowladda Norway ee magaalada Longyearbyen sheegeen in haddii aan la dhaqan gelin lahayn ay horseedi lahaayeen dhibaato caafimaad, waana taasi sababtay inay la yimaadaan qorshahan horseeday in dadka laga mamnuuco in lagu aaso magaalada. Khubarada caafimaadka waxay kaloo sheegeen in xanuunada ay u dhintaan dadka lagu aaso magaalada ay si sahlan ku faafi karaan. Mas'uuliyiinta dowladda waxay kaloo sheegeen in haddii dadka deegaanka ay taabtaan meydkaasi ay si sahlan ku qaadi karaan xanuunka Spanish flu oo mar dunida u aafeeyay si la mid ah fayraska corona. Xawaalaha magaalada Longyearbyen ayaa ah kuwa aanay dadku deegaankaasi ku tashanin. Hargabka Spanish flu ayaa la aaminsan yahay in caalamka uu ku dilay in ka badan 50 milyan oo qof. Magacaygu Cabdulla, halkan waa kanaalka dunida.